وهاجاك داود intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka barqanimo ee TV-ga qaranka Soomaaliyeed waa maalin Arbacada taariikhduna ku beegan tahay 10 bisha 10aad ee Oktoobar 2018 iminkana u diyaar garooba warkii oo dhan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga Waryahayaga Cali Jaamac Cali Kuus ayaa warka nooga soo diray Sacuudi Arabiya wafdigii uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa haatan guda galay jadwalka howlihii booqashadiisa iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu qasriga martida uu ka degan yahay magaalada Riyaad uu xalay ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya Mudane Caadil Jubayr haddaba kulankaasi ama qaabilaadaasi waxay labada dhinac iskula soo qaadeen sii xoojinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo dalka Sacuudi Arabiya haddaba dhinaca Soomaaliya waxaa qaabilaadaasi goobjoog ka ah wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad iyo xubnaha kale oo ka tirsan wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo siihayaha safaaradda Soomaaliya u fadhiya dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya Mudane Salim Mahow Xaaji iyadoo dhinaca kale ay goobjoog ka yihiin xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo danjiraha dowladda Sacuudiga u fadhiya dalka Soomaaliya Ali Jaamac Cilmi Cali Kuus warbaahinta qaranka Soomaaliya SNTV Saudi Arabia